سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح. السلام عليكم walaalayaal isku soo noqod wacan oo wanaagsan waa anigoo walaashin hani ah oo idin le mar kale ku soo dhawaaq qiso aad iyo aad u cajiib badan. qisadeenuna sidatan ayay u dhacaysaa. gabar yar oo dhigata dugsiga hoose dhaxay ayaa waxay ku soo noqotay gurigooda. hooyadii ayaa waxay gabadhii yareed ka dareentay in ay murugo haysato. waxay weydiisay gabadha waxa ku dhacay ay la murugaysan tahay. waxa ay gabadhii yareed ku jawaabtay macallimadeedii madax xanuunka ka sheegani jirtay oo aad u qaylida badneed. waxay igu hanjabtay inay iskuulka iga burinayso sababtuna ay tahay dharkayga dhadheer aan xiranahay aawadeed. maxaa yeelay ma doonayso in ay igu aragto. hooyadii ayaa ku jawaabtay dharkan waa dharkii Allah rabay, macallimadana ma rabto. yaad adeecaysaa allihii ku abuuray ee ku qurxiyay ee ku nimceeyay nimcooyin fara badan, ama waxaad adeecaysaa macallimadaada oo ah qof la abuuray sidaada oo kale oo nafsadeeda aanan awoodin inay xumaan iyo wanaag farto. gabadhii ayaa waxay dhahday waxaan adeecayaa aniga Allah subxaanahu wa tacaala. maalintii labaad waxay ku soo laabatay iskuulka ayadoo xiran dharkeeda dhadheer. macallimadii markay aragtay waxay ugu qaylisay si kulul. gabadhii yareed waxay u dulqaadan waysay qaylidaasi iyo asxaabteeda oo soo wada dhowrayaan, waxayna bilowday in ay oyso. gabadhii waxay macallimada ku dhahday hadallo yar balse micnahoodu weyn yahay. Allah ayaan ku dhaartee ma garanaya cid aan caabudi lahaa, adiga mise Allah. ma adiga ayaan ku adeecaa oo waxaan xirtaa dharka aad rabto oo Allah ayaan ku caasiyaa, ama waxaan adeecaa Allah si aan u raali geliyo oo adiga ayaan kula caasiyaa sida Allah subxaanahu wa ta'ala ku yiri quraankiisa. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. aniga waxaan adeecayaa Allah wixii dhicina ha dhaco, xitaa maad iskuulka iga burisid. adigana waxaan kula waaninayaa wajiga Allah. soo xir xijaabka Allahna amray si Allah iyo rasuulkiisa raali kala noqdaan, sidii rasuulka noogula dardaarmay xilli uu dhahayay naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee. qofkii arka xumaan ha ku zuuliya gacantiisa, haduusan awoodin carabkiisa, haduusan awoodin qalbiga ha ka naco. taasi ayaa ah mid ugu daciifsan iimaanka. kadib markay gabadhii yareed qaadatay amarkii Allah kaliya ah ee wax walba awooda oo ay waynisay macallimadii way hadli waysay. waxayna gabadhii yareed ku amartay in ay bari subaxii keento hooyadeed iskuulka. hooyadii ayaa imaatay iskuulka iyadoo leh macallimada maanta cashir ay weligeed tilmaamin soo sii. macallimada ayaa hooyadii ku tiri gabadhaada yar waxay waanisay waana hore aan weligay u maqal intii aan noolaa. si kasta aan cilmi badan u bartay waan ku hambalyeenayaa maadaama gabadhaada aad ku barbaarisay jaceylka Allah iyo rasuulkiisa. Allah ayaan ku dhaartay gabadhaada waxay ii saamaysay si weyn. markii aan shalay iskuulka ka tagay oo aan aaday gurigayga anigoo salaada ku jira ayaan ilmeeyay, waxaana Allah ka ballan qaaday in aan adkeeni doono awaamirtiisa, aan dibna u caasini doonin mar dambe. waxaan Allah ka barye in uu ii dambi dhaafo oo diinta qalbigayga uu ku sugo. marka macallimada ay qaadatay xijaabka ayna xiratay dharka dhadheer ayna qaadatay Allah awaamirtiisa, waxay ka roonaatay madax xanuunka aadka u fara badnaa ee heeyay. muddo yar kadib macallimadii waxaa soo doonteen niman kala dudugan. markii ay guursatay ka bacdi waxay gabadhii yareed ee ardayada ahayd ay ku tiri Allah adiga maxaan ku jeclahay, waxaad bedeshay noloshayda oo idil fadliga Allah dartiis iyo qaadashada Allah amarkiisa adigoo aan ka cabsanaynin in aan ku ciqaabo. ولو أننا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما.
ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله
وكفى بالله